بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسر وهذا مركله iyo FBL Soomaali waa anigoo Daar Cabdil Cali waxaana ku guda jirnaa barnaamijyada gaarka ah oo naga hadlaynay Euro Fantasy Euro 2020 oo ka dhici doona garoomada Yurub ugu caansan oo sidaan hore idinku soo sheegayba Euro 2020 oo loogu talagalay inuu dhaco 2020 sida magaca ka muuqdaba in 2020 hadda aan ku jirno oo dhici doona maadaama adduunyada uu saameeyay cudurka COVID-19 waxa uu ka dhici doonaa garoomada ku kala yaala Rome, St. Petersburg, Seville, London, Munich, Glasgow, Copenhagen, Budapest, Bucharest, Baku iyo Amsterdam. Garoomo intaas ku kala teedsan ayuu ka dhici doonaa. Finaalka ugu dambeeya wuxuu ka dhici doonaa London. Furitaanka labada ugu muhiimsan waa labadaasna waxay ka kala dhici doonaa midna Talyaaniga uu ka dhici doonaa oo Rome, midna wuxuu ka dhici doonaa London. Marka saan hore ku sheegayba Euro 2020 sharciyadiisa waxa loo kala qaybiyay ilaa iyo waxyaabo oo cajiib ah ku jiro oo cusub waxa kamid ah in aad sameyn kartid bedelo inta uu socdo kulan ciyaareedka inaad saystid bedel ama la wareegis aan xadidnayn in haysatid ayaa kamid ah waxyaabahaas oo dhanna waxa waaye maadaama tartankan uu yahay tartan heer caalami ah oo uusan ahayn horyaal oo toddobaadle ah uusan ahayn marka farqiga halkaas oo ka imaaday marka waxaa jira maamulayaal maadaama ay ilaa dhowr bari ay ka harsan tahay kulanka ugu soo horeeya ee furitaanka ee u dhaxeeya Talyaaniga iyo xulka qaranka Turkiga waxaa jiro ciyaartooy ay maamulayaasha ku tashanayaan gaar ahaan weerarka oo ah dhinaca ugu badan ama ugu meelka ugu qaalisan dhihi karaa oo ciyaaryahanada ugu qaalisan ayaa halkaas ku jira oo waxa ugu horeeya ciyaaryahanada weerarka ee ugu caansan uguna qaalisan weeraryahanka shanta jeer ku guuleystay Ballon d'Or-ka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo waxa uu qiimihiisu waa 12 milyan waxa uu ciyaaraa xulka Portugal haddii aan fiirno xogaha muhiimka ah 7 gool ayuu ka dhaliyay intii hadda ay ka hor imaatay xulka Hungary oo ah xulka ugu soo horeeya ee Portugal. Ronaldona waxa uu aan raahday halkaas aan ku laabto Portugal waxa ay ka dhalisay Hungary ilaa 7 gool saddexdii kulan ee hadda ugu dambeysay ee ka hor imaatay xulka Hungary. Kulamadaasi Ronaldo waxa uu dhaliyay 5 ka mid ah sidoo kalena caawin ayuu sameeyay isagoo saddexdii kulan ee ka mid ahaydna uu qaatay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee kulanka. marka Ronaldo marka wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kabtanada ugu wanaagsan ee toddobaadkan maamulayaasha ay ku tashan karaan. Waxa ku xiga Romelu Lukaku oo asna haysta qiimo ahaan waa 12 wuxuu ka mid yahay kuwa ugu qaalisan waxa uu haystaa 12 maqnaanshaha waxa saameyn ku yeelan kara laakiin Kevin De Bruyne oo ka maqnaan doona kulanka ugu horeeya kulankaasi Lukaku waxa uu ka hor imaanayaa xulka qaranka Ruushka waxa uu noqon karaa mid ka mid ah ciyaaryahanada saameynta ugu badan ku yeelan kara iyadoo ay xulka qaranka Russia ay ka mid tahay xulalka aan inta badan daafacooda aad u jilicsan oo 6 ka mid ah kulamada hadda ugu dambeeyay shabaqoodii maysan ilaashanin oo gool ay laga dhaliyay marka taas waxay ku siin kartaa in Romelu Lukaku uu noqdo mid ka mid ah weeraryahanada aad ku tashan kartid oo aad shaxdaada ku darsan kartid maadaama ay wali furan tahay isbedelkan aad wali sameyn kartid ilaa haddana aad bedeladaada iyo shaxdaada aad la socon kartid sidoo kale waxaan xasuusinayaa in fantasy league aan sameynay oo FBL Soomaali uu sameeyay halkan aan soo dhigi doono linkiga iyo koodkaba haddii koodka xataa afka idin kaga yeeriyo koodka waxaa waaye 93 ra'sa rama u 9 eber 8 amaba 93 RSRM U908 taas ayuu koodkaas ayaa kusoo geli kartaa linkigana hoose ayaan soo dhigayaa kusoo biira oo aan iskaga warhayno sidoo kale YouTube-keena subscribe saar haddii aad ku cusub tahay haddii kale oo aad hore u saartayna notification ku furo saaxiibadaadana la wadaag aad u mahadsantiin ciyaaryahanka kale ee muhiimka ah oo xulka qaranka Ingiriiska hogaaminayo qof kale ma ahan waa ninka kabta dahabka horyaalka Ingiriiska ee naga dhamaaday ku guuleystay waa Harry Kane qiimihiisu waa 12.5 maadaama aan ognahay in
xil ciyaareed wanaagsan oo soo galay oo kabti dahabka uu kusoo guuleystay waa ciyaaryahan lagu tashanayo maamulayaasha inta badan maadaama ka hor imaanaya Croatia ay hadda ay soo iibsadeen oo aad loogu tashanayo Croatia waa xul kulamada hadda ugu dambeeyay lixdii hadda kulan ugu dambeysay 7 gool laga dhaliyay sidoo kale waxa ay sameeyeen oo kaliya oo shabaqooda ilaasheen 2 kulan oo ugu dambeysay 7daas kamid labadaas kulan waxay ahaayeen xulalka Malta iyo Comoros waa 2 xul oo aad iskaga daciif marka waxay ku siin kartaa in aad ay ugu dhalato waxaan ognahay England inay weerar fiican haysto oo waxa kamid ah Grealish waxa kamid ah ciyaaryahanadaas oo kale yani waxay siin karaan fursad fiican in Harry Kane oo kale oo gool dhaliyo sidoo kale Harry Kane waxaan ognahay in uu qaadan karo hadii fursad ay soo baxdo in rigoore la keeno maadaama ninka ugu badan qaladka lagu galo hadda horyaalka hadda ugu naga dhamaaday Ingiriis oo kale Grealish uu ahaa Grealishna hadda uu ninka uu fiican lagu tashanayo in England hogaamin doono qadka dhexe ka hogaamin doono uu yahay marka halkaasna Harry Kane waa lagu tashan karaa waxa kale oo kamid ah Antoine Griezmann oo asna qiimihiisu yahay 11 Antoine Griezmann markii la fiiriyo qaab ciyaareedkiisa horyaalka iyo qaab ciyaareedkiisa xulka qaranka waa kala duwan yihiin oo France markuu u ciyaarayo waa uu fiican yahay oo waxaan ognahay in waagii 2018 markii koobka adduunka qaadayay Griezmann wuxuu kamid ahaa goolayaasha ugu fiican ay wateen sidoo kale kulamada hadda shanta ay ugu dambeeyay 3 gool ayuu dhaliyay waxa kaloo Germany xulka qaranka oo Germany oo ka hor imaan doona 9 gool ayaa laga dhaliyay 5 kulan hadda ugu dambeysay 6 waxa ka dhalisay kooxda Spain oo aan ognahay kulan aad loola yaabay ahaa iyo sidoo kale in xulka aadka iskaga yar North Macedonia oo 2-1 kaga badiyay marka meeshaasna waxa suuragal ah in Antoine Griezmann maamulayaasha aad ay uga faa'iideystaan sidoo kale Memphis Depay oo ciyaar xulka qaranka Holland in uu yahay asna mid kamid ah ciyaaryahanada ugu fiican horyaalka fiican ay soo qaatay oo xil ciyaareed aad wanaagsan oo 32 gool oo caawin gool isku jira ay sameeyay waxa uu noqon karaa mid kamid ah ciyaaryahanada ay aad ugu tashato xulka qaranka Holland marka aad ula soco weeraryahanno kale ayaa jiro waxa kamid ah Mbappe ayaa jiro Lewandowski ayaa jiro Moreno ayaa jiro Hector Moreno waa mid kamid ah daa'irta xulka qaranka Spain oo sanadkan aad looga yaabsan yahay oo maadaama ay ciyaartoy daa'iro fiican ay haystaan tababar Enrique ay wataan marka meeshaasna waxay noqon karaan mid kamid ah xulal kale sida la yaab kale oo guuleysta gruubyada markaan fiirino hadda gruubka A oo kale oo isku jiraan xulka qaranka Wales Talyaaniga Switzerland iyo Turkey oo ah gruubka ugu horeeya toddobaadka ugu horeeya ugu soo horeeya ciyaaryahanada Bale oo kale oo qiimihiisu yahay 9.5 ayaa kamid ah ciyaaryahanada aadka hadda loo iibsanayay oo aad loo fiirinayo Kana Roberts oo asna u ciyaara xulka qaranka Wales wuxuu kamid yahay ciyaaryahanada qiimaha yar laakiin dhibcaha daafac oo kale laga heli karo oo maadaama shaxdaada ay ka kooban tahay 15 mar walba waxa u baahan tahay ciyaaryahanada daafaca Daniel James oo asna Wales ah ayaa kamid ah weeraryahanka Ciro Immobile oo qiimihiisu 10 yahay ayaa kamid ah weeraryahanada ugu fiican maadaama Talyaaniga oo kale Federico Chiesa oo ah da'yar aad u qiimo u leh oo hadda si fiican u soo kacaya ayaa qadka dhexe ugu jira sidoo kale Federico Chiesa waa gool dhaliye waaye oo isna wuxuu kamid yahay qadka dhexe ugu fiican maamulayaasha aad ku fiirinayaan Bruno Fernandes oo xulka qaranka Portugal u ciyaara asna oo dhinaca caawinta oo kale aad ugu fiican asna wuxuu kamid yahay mid kamid ah ciyaaryahanada aadka loo iibsaday dhinaca goolahayaasha oo kale Thibaut Courtois ayaa kamid ah goolahayaasha aadka loo iibsaday Donnarumma oo Talyaaniga ah ayaa kamid ah asna goolahayaasha aadka loo iibsanayay Xherdan Shaqiri oo qiimihiisu yahay 7 asna wuxuu kamid yahay ragga hogaaminaya xulka qaranka Switzerland oo booskiisa joogtada ahna aad looga filay dhinaca daafaca hadii aan markale aan fiirino oo Switzerland Rodriguez ayaa kamid ah oo asna meeshaasi daafacyada looga xisaabtami karo xulka qaranka Turkiga oo asna kamid ah xulalka gruubkan ku jira Burak Yilmaz oo aan ognahay ciyaaryahan ahaan weerar ahaan sidoo u fiican yahay oo qiimihiisu waa 8 wuxuu kamid yahay weerarada yahanada ugu qiimaha jaban wuxuu noqon karaa farqi lagu tashan karo
oo groupka aad looga xisaabtami karo. Hakan channelalo oo khadka dhexe ugu jira waa ciyaaryahan fursadaha abuura sidoo kale aragti dheer leh wuxuu ka caawin karaa in uu Burak Yilmaz uu gol leh. intaas ayaan kusoo koobayaa saaxiibayaal aad ay mahadsantihiin. waxaan idin xasuusinayaa in FPL Somali uu idinku talagalay liig cusub oo koodkiisana aan hoos soo dhigi doono iyo waliba linkiga aad ku soo biiri kartaan. sidoo kale saaxiibada ugu yeera oo bogga hala kala kiciyo sidoo kale Facebookga, Twitterka, Instagramka waxaan ku soo qoraynaa warbixino joogto ah oo la xiriira halka ay wax marayaan ciyaaryahanada hadda waxyaabaha ugu xiisaha badnaa oo toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa Alexander Arnold oo ka mid ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanada aadka loogu tashanayay oo fantasiga mar walbana joogto ah caawinta u sameeya daafacana loogu tashado ayaa dhaawac galay oo waxaa laga soo saaray ciyaartoydii England sanadkan u matali lahayd ayaa laga soo reebay. marka waxaad ka warsugaysaan inta bedelka laga soo saarayo halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa dhinaca Facebookga ayaan inta badanna iyo Instagramka ayaan si toos ah ugu daabacnaa wararkaas oo joogto ah. marka si gaar ula soco oo rukumo oo la soco Facebookga iyo Twitterka iyo Instagramka gaar ahaan. sidoo kale YouTube-kana subscribe ka saar sidoo kale saaxiibada ugu yar. aad ay mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.